بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، درسيغان ودرسيغ سدحاد كميدا كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. درسيغ maanta wuxuu ka bilaabanayaa baabka uu sheekhu leeyahay raximah allahu tacaala, baabu fadli towxiidi wamaa yukafaru bihi min addunuub. baabu fadli towxiid, towxiidka fadliga iyo fawaa-idda uu leeyahay ayuu u baab yahay. io wamaa ayuu u baab yahay. io wa baabu maa kii ayuu u baab yahay yukafaru lagu dhaafahaya bihi maagaba min addunuubi dunuubta lagu dhaafahaya. baabka sheekha raximah allahu tacaala ee halkan noo dhigay wuxuu ka kooban yahay laba nooc. nooca koowaad waxaa weeyaan waa in caddayn uu caddaynayo fadliga iyo fawaa-idda uu towxiidka u leeyahay. nooca labaadna waxaa weeyaan caddayn uu sheekhu caddaynayo waxyaalaha lagu dhaafo dunuubto. maxaa yeelay fadliga aahaartiisa waxaa ka mid a takfiir dunuub. shayga fadaa-ishiisa waxaa ka mid ah in marka dunuubta lagu dhaafo. baabu fadli towxiidi, towxiidka fadligiisa ayuu u baab yahay. io wamaa wixiiba u baab yahay yukafaru lagu dhaafo bihi maagaba oo min adunuubi dunuubta ah. waaya qaala tacaala, ilaahay wuxuu yihi aladiina kuwii aamanuu allah rumi oo walam yalbisuu aan ku dheehin iimaanahum iimaankooda bidulmin ay bishirkin, shirki aan ku dheehin oon ku qasin. ulaa-ika kuwa iidee waxaa u sugnaaday buu ilaahay yihi subxaanahu wa tacaala, lahum alamnu wahum muhtaduun. ulaa-ika kuwa iida ah lahum waxaa u sugnaaday alamnu amni ayaa u sugnaaday, wahum ayagana muhtaduuna kuwa hanuunsano la hanuuni wey. aayaddan sheekh wuxuu u keenay waxay tilmaamaysaa fadliga uu leeyahay towxiidka iyo fawaa-idda uu leeyahay. waxaa ka mid a uu sheekhu u keenay aayaddu qofkii iimaan laga helo, iimaankan aan shirki aan ku qasin, in amni uu helayo adduuni aakharaba. amni aakhare ayuu helayaa oo cadaab buu aakhare ka badbaadaya. adduunkana amni ayuu helayaa oo bidaca iyo shirkiyaadka oo dhan buu ka badbaadaya. isla markaa faa-iidada labaad oo u keena aayadda waxaa weeye hidaayo inuu ilaahay siinayo subxaanahu wa tacaala, inuu ilaahay hanuuninayo. adduunyada intay joogaan ilaahay waa hanuuninayo oo sida sawaabka iyo toosanoo ilaahay ku hanuuninaya subxaanahu wa tacaala. marka alle waxa uu leeyahy subxaanahu wa tacaala aladiina kuwa aamanuu allah rumey oo walam yalbisuu aan ku dheehin iimaanahum iimaankooda bidulmin, dulmi aan ku dheehin oon ku qasin. dulmiga hunaa waxaa laga wadaa ashirku. aayadda markay soo degtay sida xadiiska saxiixa ku sugan bukhaari keyrkii ay wariyeen, saxaabadu arrintaas aada iyo aad ayay u dhibtay. maxaa yeelay dulmiga caadiga ah oo cidna ka fakan karin ayay u qaateen. kadib baa nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam, laysa alamru kamaa tadunnuun inama almuraadu bihi ashirku. arrinka saad u malaynaysaan ma aha ee waxaa loola jooda aayadda dulmiga aayadda ku yimid oo waxaa laga wadaa ashirku. markaasuu nebigu wuxuu yihi calayhi sala slam, alam tasmacuu ilaa qowli rajuli saalix, addoonkii wanaagsanee codkiisa hadalkiisa miyaadna maqlin? uu yihi ina shirka la dulmun cadiim, isagoo marka u caddaynayo dulmigaas inuu shirki yahay. dulmiga markaa nusuusta ku soo arooro waa laba nooc wey. midka koowaad waxaa weye ashirku billaah, in ilaahay wax lala wadaajiyo, waana dembi la galo iyo gardarre iyo dulmi lagu dhaca kan ugu weyn wey. saas daraaddeed nabiga macnaha waxaa weeyaan luqmaan cunugiisa markuu la hadlaya wuxuu ku ina shirka yaa bunaya laa tushrik billahi ina shirka la dulmun cadiimun, waa weyn yahay. kan labaadna waxaa weeyaan shirkiga macnaha dulmiga kale oo dhaco oo makhluuqaadka ay dhexdooda isku sameeyaan, ama qof naftiisa ku sameeye ha noqdo ama qof kale ku sameeye ha noqdo. waaya
aayaddaas markuu sheekhu keeni labadaad faa'iide uu ka milacsanaya. faa'iidada koobaadna ay tahay in amni la helayo adduunya aakharaba. faa'iidada labaadna inay tahay inuu ilaahay hanuuninayo kuwa subxaanahu wa tacaala. وعن عبادة بن صامت رضي الله تعالى عنه قال وحيري صحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك ألا يا وحيري من شهد نكي كمرغاتكعه أن لا إله ألا حق لوعبدنا نجرين إلا الله إلهي مويان قفك أرندا كمرغاتكعه وحده حال ألا كلي لا شريك له وحلو ذاقنا يسجرين أرنتاس. وأن محمدا نبي محمد عبده الله دون كيس إنه ياي ورسوله كي أصدر إنه ياي كمرغاتكعه. وأن عيسى عبد الله إلهي أدون كيس إنه ياي ورسوله رسول كيس إنه ياي كمرغاتكعه. وكلمته ألا كلمة ديس إنه ياي ألقاها الله أطوري ووجهي وكطوري إلى مريم حقد وكطوري. وروح إنه ياي ومنه من الله الحقيقة كأهاتي. وأن الجنة كمرغاتكع حق إنيتهي. والنار نارتنا حق إنيتهي كمرغاتكع. أدخله الله الجنة قفك إله الجنة قلنا على ما كان وحو كدل سقيا يا لقو قلنا من العمل عمله. أخرجاه حديث بخاري مسلم باصوصاري. بخاري وصوصاري كتاب أحاديث الأنبياء أيوك صوصاري باب قول الله تعالى قل يا عبادي لا تغلوا قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. مسلم وصوصاري كتاب الإيمان باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة أيوك صوصاري. حديث كان شيخ وحوكين رحمه الله تعالى وحيال بدن وفضل لا إله إلا الله تلمامايا. وحيري نبي عليه الصلاة والسلام قفكي كمرغاتكعو ألما وعدك لحق لو عابد إني سجرين كليجيز نؤمودية هاي عبادة إيه عابدتانك ولا لو داقين سيدا مرغاتي ربقى كفره وسيدا ومرغاتكع. نبي محمدنا عليه الصلاة والسلام أدونك الله إنو ياي رسول كيسن وياي كمرغاتكع رسول ويانا مد إلهي وحلو مئة أدون ويا هرت مركا كوبات سيدا درادد إلهي سبحانه وتعالى نبي جيسا meelaha ugu sharafta badan markii la marayo adoon ayaa laga cabiraa. quraanka ku arkaysa subhana alladhi asra bi'abdihi xiliga dheelminta iyo sharafta la marayo ayaa waxa la leeyahay bi'abdihi baa la leeyahay. alhamdulillahi alladhi anzala ala 'abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. nuzul alquran markii la marayo adoon baa laga cabiray. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا إلى آخره. مركا قرآنكو حكا عبرا ميلها نبي عليه الصلاة والسلام لو أمانايو الضوم بالغا عبرا. أصلا النبي عليه الصلاة والسلام حجري أنو أدونك إلهي باناي رسول كيسي فقولوا عبد الله ورسوله. أدونك الله إدها رسولك الله إدها. هاني يقحد قدبينه كما أضرت النصارى عيسى بن مريم سيدا النصارى عيسى وحد قدبتي هاي وحد قدبينه. marka taa waxa laga digayaa dadka qaarkood oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam manzilatul ilaah ama darajadii alla gaarsiiyeen oo dambi dhaaf weydiisanayaan oo caruur weydiisanayaan oo caafimaad weydiinayaan oo wax kastoo ilaahay khaas u leeyahay rasuulka la wadaajinayaan ayaa laga digayaa. waxaa kaloo ka marqaati kacaya wa rasuuluhu rasuulka alla uu soo dir inuu yahay waayahay. waxaa kale oo qofkaas uu ka marqaati kacaa ciisana inuu yahay addoonka alla rasuulkiisa inuu yahay. maaha siday nasaara ku sheegtay ooy dhaheen laqad kafara aladiina qaaluu ina allaha huwa almasiixu bnu maryam. ina allaha huwa almasiixu lmaryam ciisihii baab ilaah bay dhaheen. mar kalena waxay dhaheen wiil ilaahi waay. waxaasoo dhan waxba kama jiraan ee waa inaan qirno inuu rasuul alla ahay addoon allana uu yahay subxaanahu wa tacaala. waxaa kaloo sheekhu ku sheegay waa kalimatu alqaaha kelimadii alla inuu yahay oo alla maryamo xaggeeda u tuuray. kelimada alla oo kun fayakuun oo alla wax ku abuuro isaga ma ahayn
waayahay kelimada nebi ciise calayhi salaam kelimo ma ahayn, laakiin maadaama lagu abuuray kelimadaas ilaahay ku abuuray subxaanahu wa tacaala, sidaasaa loogu idaafay. idaafadana waa idaafatu tashriif weeye. waay ee kelimada alla subxaanahu wa tacaala waa sifo u asaga leeyahay oo alla ku sifaysan yahay wey, mid alla ka soocanna ma aha subxaanahu wa tacaala. marka ciise kelimatullaahi ma noqon karo, laakiin maadaama alla kelimadiisa uu ku abuuray sidaasaa loogu idaafeeyey. siduu ilaahay buu yidhi subxaanahu wa tacaala, ina mathala ciisa cinda allahi kamathali aadama khalaqahu min turaabin huma qaala lahu kun fayakuun. waay maryamo ayaa lagu tuuriyo waa tii loogu dhiibay nebi, macnaha waxa weye jibriil calayhi salaam baa loogu dhiibay uu ku afuufay. waaye i wa ruuxu minhu, ruux alla xaggiisa ka ahaatay, ruuxun oo minhu min allahi xagga alla ka ahaatay wey. waaye ilaahay baa subxaanahu wa tacaala u dhiibi jibriil calayhi salaam wuuna ku afuufay, waaya wahaakada. marka ruuxaadki ilaahay subxaanahu wa tacaala ruuxda uu dadka macnaha makhluuqaadka ku abuuray ka mid unbaa loo dhiib uu ku afuufay, saasaa marka lagu abuuray. waaya idaafadaasayna mar walbaba waa tashriif, inuu macnaha makhluuqaadka kale wax la dheer yahay ayaa marka la tilmaamaya, saasunbaa laga wadaa. waxaa kale oo qofkaas ka marqa waljannata xaqun, jannadan inay xaq tahay uu ka marqaati kaco, naartan inay xaq tahay uu ka marqaati kaco. intaan qofka markuu ka marqaati kaco ayaa maxaa la yidhaahaa ilaahay wuxuu gelinaya jannada subxaanahu wa tacaala. towxiidkaas khaaliska sababtiis ayuu ilaahay ku gelinaya subxaanahu wa tacaala. wax kastoo camal ha ku sugnaado, bimacnaa camal kasta oo iyo qaladaad kasta oo ka dhacay ilaahay jannada ayuu ku gelinaya subxaanahu wa tacaala. maxaa yeelay jannada galitaankeeda laba qaybood u qaybsamaa, dukhuul kaamil ah oon cadaabba ka horreymin, kaas oo qofkii marka qaladaadkii waayahay aan meesha la tegin wey, iyo mid dukhuul naaqis loo yaqaano oo cadaab uu ka horeeyo. marka hore qofka qaladaadkii u sameeyey baa laga jarayaa, kadibna hadhow haddii macnaha qalbigiisa iimaan khaalis uu ku jiro waa laga soo saarayaa. marka si kastaba ha noqotee janno unbuu ku dambaynaya wey. waaya can cibaadati bni saabitin radia allahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi rasuulka ilaahi wuxuu yidhi man shahida qofkii ka marqaati kaca an laa ilaaha alla xaq lagu caabudo inuusan jirin ila allahu alla mooyaane, waxdahu xaal oo alle keligiiya laa shariika lahu, cibaadadana wax la wadaaga aysan jirin. qofkii intaan ka marqaati kaco wa ashhada ka marqaati kaca ana muxamadan cabduhu wa rasuuluhu, nebi maxamedna calayhi salaatu wasalaam addoonkii alle inuu yahay, rasuulka allena uu yahay, ka marqaati kaca. wa anna ciisa cabdullaahi wa rasuuluhu, ciisana addoonkii alla iyo rasuulka alle inuu yahay, ka marqaati kaca. wa kalimatu alqaaha, kelimada alla oo alle wa kalimatu kelimada allana inuu yahay, alqaaha alla uu tuuray ilaa maryama xaggeed loo tuuray inuu yahay, ka marqaati kaca. iyo wa ruuxun ruux inuu yahay oo minhu min allahi alle xaggiisa ka ahaatay, oo ruuxyadii alle wax ka abuuray ka mid mid ka mid a lagu abuuree. waljannata jannadiina ka marqaati kaca xaqun inay tahay, wannaara naartiina ka marqaati kaca xaqun xaq inay tahay. adkhalahu allahu ljannata, ilahay janno ayuu gelinayaa calaa maa kaana wax allah wuxuu ku dul sugan yahay min alcamali camal ah. akhrajaahu bukhaari muslim baa soo saaray. calaa maa iyo ladiigii dushiisa ayuu alla janno ku gelinaya kaana uu ahaado min alcamal camal ah. waay maadaama towxiidkiisa uu khaalis yahay, jannada ha ku dambeeyo, gadaal ha laga geeye ama horeba ha laga geeye, janno ayaa la geynayaa wey. waay marka waa bisababi towxiid wey, towxiidka sababtiisa wey. waa la gartay. walahumaa bukhaari muslim waxay wariyeen, waxaa u sugnaaday walahumaa bukhaari muslim waxaa u sugnaaday fi xadiidi citbaan ibnu malik alansaari radia allahu canhu, xadiidkiisa dhexdiisa waxaa uga sugnaaday ka wariyeen, fa ina allaha alla xarama cala annaari, naarta dusheeda ilaahay wuu ka xaram yeelay, man qaala ninkii yidhaha laa ilaaha ila allahu, kelimadaas ninkii ku dhawaaqo yabtaqi asagoo ku dalbayo bihaa bidaalika dhawaaqaas ku dalbaayo
wajha allahi ilaahay dartiis ula joodo qofkaas ilaahay janno waa ka xarimi. waaya taxriimkaas marka waa laba qeyboodoo in marka horeba ay taabato in laga xaaraam yeelo. waaya mase ma ahe in macnaha waxa uu kusii nagaado in laga xaaraam yeelo wey. laakiin shardigaa lagu xidhay waxaa la yidhi yabtaqii bidalika wajha allah, ikhlaas baa loo baahanya ilaahay dartiis in macnaha waxaa weeyaan iyo status iyo waxaasoo dhan inuu tawxiidkiisa ka ilaaliyo iyo acmaashiisa wey. walahumaa waxaa u sugnaaday bukhaari muslim fi xadiidi citbaan ugu sugnaaday fa ina allaha alla xarama cala naari naartu uu ka xarimi man qaala ninkii yidha laa ilaha illa allahu, kelimadaas ninkii ku dhawaaqay yabtaqii bidalika asagoo arrintaa ku dalbayo ku raadinaya wajha allahi ilaahay wejigiisa oo ikhlaas ay ka tahay wey, ee status iyo ku gaba iyo midna aysan ka ahayn. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكوري قال رسولك نيري قال موسى عليه السلام نبي الله موسى عليه السلام بوحوري يا ربي ربي جيو علمني شيئا وحبر شيء قاسو أذكرك أنكو وحس أو أدعوك أنكو وبريو به شيء قبا قال وحوري الله قل وحاتر يا موسى موسى لا إله إلا الله كلمة ذاك قول ده. قال وحوري نبي موسى يا ربي ربي جيو كل عبادك الدوام هذا دمانتود يقولون هذا وركن إليه وايه. قال وحوري الله سبحانه يا موسى موسى لو أن السماوات السبع سماوات كالتضبضع إي وعامرهن أنت كل حسقون ودحدقن وعامريس غيري أني قعنهين إي والأرضين لك سبعة تضبضع في كفة كفضو معناها هدي الله صاروا ميزان دنعيس هدي الله صاروا ولا إله إلا الله كلمة لا إله إلا الله في كفة لصاروا أيضا مالت وإلا إيلان لهد بهن أيقول لا إله إلا الله مالت لا إله إلا الله لا إله إلا الله وعلا إيلان يسو بهن سماوات إيا دولور كوا راه ابن حبان باوري حديث كان والحاكم بايوري وصحاه ونصحيح يالي وايا حديث كان وحو تلماما يا كلمة لا إله إلا الله فضل أي لهاي أيو أسنت المامايا وشيخا أكاني. أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أيا وحو رسولك كورنا عليه الصلاة والسلام إن رسولك ويري عليه الصلاة والسلام نبي موسى وحويري ربي يو وحاد إبرتاوح أن كوغو حصو كوغونا بريو وايه نبي موسى الله وحو كيري سبحانه وتعالى لا إله إلا الله ده كلمة يقول حس نبي موسى وحو يري ربي الدوام هذا دمانتود كلمة ويكو هالله وهي كلمة إنو يريسنا معها لكن وحو دوناي وح أساق لك قوني إنو راس إن واحد لقوه قوني يلو وحوي وفضلي إيو قيمة ديرادة وي marka wax dheeraad ah oo dan dadka kale la wadaagay ka duwan inuu helo ayuu marka waxa weeyaan uu macnaha u danaynayo way masama ahe waxa la dhihi karaa sida sheekha fawaid uu ku keeni karo nabi Muuse alayhi salaam kuma baraarugsaneen marka oo fadliga la ilaha illa allah ولهذا marka inay maadaama uu bashar yahay inay fadliga ka qarsoomano way dhici kartaa waxa baraarujinayana waa Allah subhanahu wa ta'ala waxa lagu yiri markaa ya Musa eedo markaa la dareensiinay fadliga ay leedahay cid kale la wadaagtina ayna markaa waxba culays lahayn fadligeedu mar walba uu ka sareeyo waxa la yiri samaawaadka todobada iyo inta ku dhax sugan waayahay غيري الله معنا أنا قاعد نحن كلمة غيري معناه واحد الماميسا مخلوقات كلا أنت السماء جوكتي أنت لولك جوكتا بقى لولك السماء يكون حسوقيهن وهذا وأباهيهن لكن الله سبحانه وتعالى وكسر ريه وما باهنه وحاكل الماميسا الله إنه نقصر ريه مسألة أسنا مركي لقى ريه بدأت كلام كوريري إيه فلسفة يوناني قا معناها waxay Greek waxyaalahaas laga dhaxlay dadka ay wareerisay qalbigooda wasaqaysay markii laga reebo umada makhluuqaadka oo dhan ay la dhihi karo marka
makhluuqaadka ilaahay oo dhan subxaana wa tacaala way isku raacsan yihiin inuu alla sarreeyo, wax dood ka qabani ma laha. markii laga reebay nimankaas macnaha waxa weye falsafada ay wareerisay ee qalbigooda iyo laabtooda ay wasaqowday iyo inta ku dayatay marka laga reeba. marka samaawaadkii haddii iyo inta ku dhex suganba iyo dholalka iyo inta ku dhex suganba haddii hal la saaro laa ilaha illa allah dhinac la saaro way la eelan lahayd weeya. marka xadiidkaas ibnu xibaan baa weri, xaakim waa uu weri, waana saxiix yeelay calaa shardi sheekheyn buu yiri. waxaa ku waafaqay imaamu dahabi raximah llahu tacaala. waxaa kaloo kusii raacay albayhaqi fi lasmaa wasafaat fi lasmaa wasifaat buu macnaha isna ku saxiix yeelay. kadalika alxaafid ibn xajar alcasqalaani ayaa isaga saxiix yeelay. waay وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسولك إنه قال موسى عليه السلام نبي موسى وحوري يا رب ربي جيو علمني إبر شيئا شيء إبر شيء قاسو أدعوك أنكو بريو وأذكرك أنكو حسو وأدعوك أنكو بريو به ما قال شيء قبا. قال وحوري ربي قل دي يا موسى موسى لا إله إلا الله ده. قال وحوري معناها موسى يا رب ربي جيو كل عبادك أدومت يقولون هذا warkan way leeyihiin. qaala wuxuu yidhi allah yaa muusa muusow low ana samaawaati haddii samaawaadka asabca toddobada iyo wa caamirahunna inta ku dhex sugna hayrii aniga aneen iyo walardiina asabca ee toddobada fii kifatin haddii la saaro waa miisaanka dhinaciisaoo la saaro walaa ilaaha illa allahuna fii kifatin ayadana la saaro maalat way la iilan leed laa ilaha illa allah way la dhici leed bihinna ayagu waa ka culays badin way ka culays badan laheed wey. راه ابن حبان باوري حديثك والحاكم وأصحابه ون صحيح يالي. ولي تلميذي وحاو سقنادي أو حسنه ون تحسيني وحسن كدغي عن أنس بن مالك وكورنا رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك أليان مغلب ويري أنس يقول حال أوليه قال الله تعالى إلهي سري وحيري يا ابن آدم عنقيسيو لو أتيتني هدياد إلى تماد بغراب الأرض dhulku muggiisa khadaaya qaladaad uma kadib laqiitanii aad ila kulanto laa tushriku bii shay-an adoon waxba ila wadaajinayne la ataytuka waan kuula imaana anna waan kuula imaanayaa biquraabihaa arladaas muggeed makfiratan oo dhaafitaan ah. waayahay xadiidkan waa xadiisu lqudsi waayahay oo tirmidi baa weri raximahu llahu tacaala. imaamu tirmidi waa weriyo baabu kitaabu dacwaati معناها باب الدعوات كتاب الدعوات باربعة باب فضل التوبة والاستغفار أيها وكوري حديثك شاهد كلام والي وعند مسلم كسرون ومركا حديثك وأسجنيه وحوليه الله سبحانه وتعالى آدم عنقيسيو هدي هذه التي ما لكم مجلس قلادات الجفة خطايا وجمع خطيئة وذنوب توي قلادات كلا قلا أما هاي رادينا أما هبطنا هذينا وين hal shardi baa marka lagu xiri. waxaa la yidhi dhulka muggiis oo qaladaad hadaad ila timaado anna iyadoo muggeedoo dambi dhaaf ayaan kuula imaanayaa, laakiin hal shardi waa in lagaa hela. shardulwacdi baa la yidhaha. shardi wacdiga muxuu yahay? ballanqaadka shardigiisa waxaa weye uma laqiita laa tushriku bi shay-a inaad wax ila wadaajinayn. shay-an waa kasada waa nakiratun fi siyaaqi nafyi waay. waaya hore waxaan usoo baranay nakirada hadday fi siyaaqi nahyi ay dhacdo wax la iska reeba daaba sida wacbudullah walaa tushriku bi shay-an inay cumuum faa'iidayso oo wax yar iyo wax weyn, wax caqli leh iyo waxaan caqli lahayn, waayahay nabi iyo malaa'ig iyo macnaha waxa dhammaan ay soo wada galayaan. waayahay oo waxna aan la ogolan in ilaahay cibaadadiisa loogu daro subxaana wa tacaala ayaan soo marnay. waxaa la mid ah nakirada hadday fi nafyi dhacdana ayadan tacumu maa la yidhaha shirkan asqar walaa akbar, ama ha yaraada shirkigaas ama ha weynaada si ahaanba shirkiba in yarna allah ka dhig aad ila wadaajinaynin anigana waa kuula imaanayo waa iyadoo dambi dhaaf ah arlada muggeedoo dambi dhaaf ah. marka shardigaas waa in lagaa helo wey. waaya shardiga haddaa kasoo bixi waysid haddee marka ma dhici karto wey adigana in wixii lagu ballanqaaday aad markaa ku guulaysato kuma guulaysan kartid. weli tirmidi waxaa u sugnaaday imaamu tirmidi raximahu llahu tacaala raxmatan waasica oo sunankiisa uu ku wari waxasanahu una taxsiini xasanu gariib una dhahay can anasin uu ka warinaya samictu rasuulkan maqlay
يقول حال إليه قال الله تعالى إلهي سري وحيري يا ابن آدم آدم عنقيسي ولو أتيتني هدي أد إلى تماضو بغراب الأرض لكم مجيس خضايا أو جفاف وقلادات لأتيتها ثم كدمنا لقيتني أني أد إلى كلنتو هدي آخر أد يقول كلنتو ويتصو جيريوتو لا تشرك بي شيئا أدون وحنا إلى وذا جنين قلادات كلا أد لهاتي دونتو ودولكم مجيس أد ودت لكن شرك أدو كبد بادي لأتيتك وانقول إيمانا بغرابها أرلد مجد وايه أو مغفرة تمدافع marka faa'iido inta ka weyn miyaa jirto xadiidka marka sheekhu wuxuu keenay tawxiidka faa'iido uu leeyahay bal eeg tawxiidka faa'iido uu leeyahay bal waa ka sida waa eeg weeyaan wuxuu yiri sheekh raxmaa fihi masaa'il baabka masaa'il ayaa ku sugan al-ula mas'alada koobaad maxay tahay sicatu fadli ilaahi fadligiisa siduu waasic u yahay aan ka faa'iideysanayna intee laga qaatay أدخله الله الجنة على ما كان من العمل بين قادني إلهي قفك أرمها عن صوت شيء كمرغاتك أو قيرو إنه إلهي الجنة جينا يو سبحانه وتعالى وحي وقالات كلبها حسم يهدور ربا مركب وإلهي الديق ديس يفضل جيس إنه واسع يعني كفاية سنين الثانية مسألة لو أن كفاية سنين وحوي كثرة ثواب التوحيد توحيد كثواب كيسي أبا الجود كيسي سيدو أبدين هاي عند الله لا يكتيس وعيان maxaa yeelay waxaan ka faa'iideysanaynaa ayadana xadiidka haddaan soo marnay oo ahay laa ilaha illa allahu in macnaha dhinaceeda uu miisaanka u badanayo maalad bihinna laa ilaha illa allah waaya marka thawaabkeeda aad iyo aad u fara badan ayaan halkaa ka faa'iideysanaynaa almas'alatu thalithatu masalada saddexaad ka faa'iideysanayn waxaa weeyaan takfiiruhu maca dalika lidunuub waaya takfiiruhu allah subxaana wa tacaala inuu ku dhaafayo maca dalika kaa la jirkiisa waayaha oo qaladaad ah lidunuubi dunuubta inuu alla ku dhaafaya ama waxaa la dhihi karaa takfiiruhu alla dhaafitaankiisa uu ku dhaafaya maca dalika waxaa weeyaan athawaab thawaabkaas iyo abaalgudkaas leedsiinaya la jirkeeda haddana wuxuu alla kusii dhaafaya lidunuubi dunuubtina waa lagugu dhaafaya abaalgudna waa lagaa siinaya dembigaadina haddi waa lagu dhaafaya almas'alatu araabicatu masalada afaraad oon ka faa'iidsanayn waxaa weeyaan tafsiiru laayati aayaddii tafsiirkeeda allatii aayaddaasoo في سورة الأنعام كتماتي آيات تفسير كذا وكفى يسنين وصمرنا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وآيات تفسير كذا وحلقوا في السير إن الشرك لظلم عظيم حديث كي النبي عليه الصلاة والسلام وصمرنا أي حلقوا في السير وظلم قال سبحانه وتعالى الشرك بالغ وضع الخامسة مسألة شناد كفى يسنين وحويا تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة تأمل الخمس شنتي إن الله في رصده الله لقد تأمله أو لقد تببرو ويا الله في رصده اللواتي كواسو في حديث عبادة كوي مادين شنت أريموت وحديث عبادة كوسو أرورين إن الله في رصده ومحي أهين شهادتينك والنبي عليه السلام شهادة الواقر الله شهادة الواقر عيسى عبد الله ورسوله إنه يعني لقى مرغاتك وكلمة ألقى إلى مري والروح منه وايه سدح سؤال كاسما أفر من الجنة حق شن أن النار حق شن تاس وحاويا إن لو فيرصدو وصفي عن لو روحو صفي عن اللو قد داله السادسة مسألة اللي حنكفها يسنين وحوي أنك إذا جمعت هديئة كل مسو بينه وايه وبين حديث عتبان حديث كان هذا صومرني حديث كعتبان وكسر معناه كدم بي وشيق لها ولهما في حديث عتبان إن الله حرم على من قال لا إله إلا الله وهي على النار أما فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله حديث كاسو كوضا لبدا حديث هذا سجيسد وما بعد وحي كدم بي حديثه تبين لك وحقوق عدانا معنى لا إله إلا الله معنى قول لا إله إلا الله لا إله إلا الله معنى ذاك عدانا وتبين لك وحكى لك عدانا خضأ وحيري أنك إذا جمعت هديات كل مس بينه حديث كان عبادة وبين حديث عتبان وكدم بهديات كل مس سجيس معنى هذا وما بعد وحي كدم بأحاديثه تبين لك وحكوا عدانا معنى قول لا إله إلا الله لا إله إلا الله معنى هذه أبنانك قوصوا دعها وتبين لك وحكى لك عدانا يخضوا المقرورين كوا لكذي وايه
kuwa la kedi macnaheedu waxa weeye kuwaba waxay u haystaan maxaa yeelay axaadiidtii waxay soo sheegtay xadiidkii hore shanta ayuu tiri xadiidka labaadna waxaa weeyaan wuxuu sheegay macnaha waxaa weeyaan wixii laga rabo ayuu sheegay waay xadiidka labaad wuxuu sheegay xadiidkii uu sii cadeeyo xadiidka citbaan wuxuu yidhi laa ilaha yabtaqi bidalika wajha allah ayuu sheegay marka axaadiidtan haddaad isu geysid horta macna laa ilaha illa waa kuu soo baxaya oo nafyigii iyo ihbaatkii ka koobnayo waayo waxaa kaloo kuu caddaanaya qolyaha la kedi oo maqruuriinta ah waayo khadaooduna waa kuu caddaanaya maxaa yeele qolyo waa haystaa jira laa ilaha illa in layskiga hadlo kelimadaas in lagu dhawaaqo un bis ah in muhiimadda ay tahay waaya oo ayna marka loo baahneen shuruudi iyo midna iyo arkaan iyo midna aysa lahayn yay aaminsiin laa ilaha illa wadaad tira maca salaam waxaa rabto iska samey 24 saac diinta ka bax kuna soo laaba meesha rabta aad waxaa nasiib darri ah nimanka noocaasa waxay aaminsan yihiin salaada inay burayso oo zakada inay burayso oo xajka inuu burayo oo maxaa la yidhahaa cibaadaadka o dhan inay burayaan laakiin inuu islaamkii buro oo laa ilaha illa allahu qofka asagoo leh inuu islaamkii uu ka buri karo ayay waxba garan waayeen oy fahmi waayeen waay kuwa iyada khada hoodon waa kuwa caddaana uu sheekhu yidhi asaabicatu mas'alada toddobaad التنبيه براروجين وي للشرط الذي شرط لسكو براروجيو في حديث عتبان كسو أروري شرط حديث عتبان كو محاوي يبتغي بذلك وجه الله ها لا إله إلا الله مركان لا وإن إله الدتي كاته إخلاص وإني كاته وإيه كدبنا هذا مقتضى هذه وحي كان سنة سوينا إلى السوي الثامنة مسألة جدا كفاية سنة محاوي كون الأنبياء أنبياء أهاشدوا كفاية يحتاجون أباهين للتنبيه براروجين على فضل لا إله إلا الله لا إله إلا فضل معناه لغو براروجيو انتان كأوغاني وحان كأوغاني النبي موسى عليه السلام مركو يري إلهي وأدوما دمانتود ويليهين ولغو براروجيو حالي والسماوات تضبضع iyo cirarka macnaha dhululka todobada intii ku dhex sugan hadii hal dhinac la saaro la ilaha illa hal dhinac la saaro dhinaceeda mar walbaba ay kafada u eelanaysa oo culayska marka taa waa lagu baraarujiyay waa cid baraarujinayno waa kuma Allah way subhanahu wa ta'ala allana inuu anbiyadiisa baraarujiyo oo makhluuqaadkiisa baraarujiyo arintaasna doodba kama jirto laakiin qolo macnaha waxa weeyaan iska xanaaqsan oo iska cuqdadaysan ayaa meeshaan oo kalaato ayaa wax ka sheegeen oo waxay dhaheen waxay ku fasireenba maxamed cabdiwahaabka kitaabkiisa kale inuu wax anbiyada baraarujina asaga u yahay waxaas waa wax lala yaabo way wax aad iyo aad loola yaabo way niman macnaha waxaa masaajidka ka istaagay oo macnaha waxa weeyaan muxaadaraad joodi oo meelo baraha bulshada ka hadleen oo kelimadan ku dhagan baa la arkay qaarkood markii lala fariistay waaba lala yaabay qaar inay macnaha anigu shakhsiyan markaan la fariistay waxay ugu dhaheen 4 sano wax ka badan yaan mas'aladan ama kelimadan dadka ugu digay oo waxaan ugu macnaynaa buu yiri sheekaynan uu nooga macnay culimadaynin ay nooga macnaysay in maxamed cabdiwahaab uu yahay wax anbiyada baraarujinay wax la yaab leh marka waxaan si fudud baan ula hadlo waxaan ku yiri anbiyada inay ilaahay subhanahu wa ta'ala u baraarujinay ma ogashay meeqa quraan ku soo aroortay way fara badan tahay intaasoo meelada ku timaad cabasa hataa macnaha ku timaadey marka wax baraarujina halka lagu sheegay waa nabi macnaha Allah subhanahu wa ta'ala xadiidkayna ku cadday oo kelimadaas uu sheekhu macnaha ka soo saaray law anna samawati sab' wa aamiruhunna ghayri wal ardina sab' fi kaffatin halkaas ayuu sheekhu ka fahmay halkan buu ka soo saaray laakiin maxamed cabdiwahaab macnaha anbiya baraarujinay iyo cid kale anbiya baraarujinays wax yirina mal arintaasna waaba gaalnimo waana gaalnimo marka waa wax cuqdad ay qabaan kaliya oo tawxiidkii ahalkiisa u qabaan bay maxaa la yiraahdaa wax walbaba iskiga intireen waa indha beeleen ilaa marka kalimaadkii meelaha iskiga qornayn hatay marka dambe ay arki waayaan الثامنة مسألة جديدة حول كون الأنبياء معناها هاشدوا يحتاجون أباهين للتنبيه على فضل لا إله إلا هو أباهين أي هلكا كفايسة وحكو براروجنا وألوي أي مخلوقة براروجنا عدة هذه ملا ما لا ديه كرو التاسعة مسألة سجالة حول التنبيه وهي براروجين لسكو براروجيو لرجحانها في جميع المخلوقات وهي لا إله إلا الله سيدا معناها علوستها أقول راجح سنتها
bijamiici almakhluuqaat makhluuqaadka dhammaantood maca ana kathiiran iyadoo in badan oo miman duul ka mida yaquuluha dhahayo yakhifu miisaanuhu miisaankiisa uu fududaanayo. halkaa masale khatar ayuu keenay. masalada wuxuu ku yidhi xadiidkii waxaan kusoo marnay laa ilaha illa allahu iyo makhluuqaadkii oo kafad laysla saare dhinaceeda ay u dhacaysa soomaana soo marin. halkaas waxay ku tusinaysaa horta in laysku baraarujiyo siday macnaha u culus tahay oo makhluuqaadkao dhan ay ugu culus tahay, laakiin iyadoy sidaa tahay oo culayska intaa la-eg ay qabto ayaa macnaha in badan oo aya dadkii dhahay ka mid dadka ku hadlaya ka mid ayaa hadhow miisaankooda u fududaanaya. intay iska qaban lahada marka meeshii wax iska qaban lahada waxaa weeye shuruudeedii baa maqan. shardiga hadda aan kusoo marnay oo yabtaqi bidalika wajha allahi baa maqan. marka haddii shay shuruuddiisa haddii la waayano wax macno uu samaynaa male, culays kasta uu leeyahy. salaadon tusaale camal salaaday dadkao dhan fahmayaan, haddii salaadii weysalaan macnaha qofka u tukado, qofkaas salaada uu tukaday miyaa la dhihi waaya salaada iyadoo la ogyahay acmaasha nabigu calayhi salaatu wasalaam uu sheegay markii qiyaamo addoommada ay hortagaan acmaasha laba qeybood baa loo qaybinaya. qeybta ka dhexaysa alla iyo addoommadiisa ka dhexaysa salaada laga bilaaba. qeybaha makhluuqaadka dhexdooda ka dhexaysana dadkii isdileen oo xaqdarri isku dileen dhiigooda laga bilaaba. marka iyadoy sidaa tahay oo acmaasha oo dhan ay iyadu hogaaminayso ya ayaa haddana haddii macnaha shuruuddeeda mid kamidi la waayo yaan waxba laga soo qaadayn. tawxiidkana waa unsaas. wuxuu yidhi atanbiyu baraarujin lirujxaaniha macnaha siday macnaha u raajaxtahay oo ay u culus tahay laysku baraarujiy bijamiici almakhluuqaati makhluuqaadka dhammaantood ay marka ay ka culus tahay maca ana kathiiran iyadoo in badan miman duul ka mida yaquuluha odhanayo oo dhahayo yakhifu miisaanuhu miisaankiisa uu fududaanayo. shuruuddiia marka laga waayo waaya. alcaashiratu masalada tobnaan ka faa'idaysanayn waxaa weeye annasu caddaynta ana alardiina sabcun naska inuu macnaha wuxuu caddeey ama caddaynta la caddeey ana alardiina dhululka sabcun inay 7 yihiin ka samaawaat sida samaawaadka oo kaleeto. mas'aladan waxaa weeyaan xadiidkanay ku timaaday samaawaadku xadiidkan iyo xadiid kaleba samaawaadka in ay 7 yihiin qur-aankay bay ku timaaday. allahu aladii khalaqa 7 samaawaatin iyo aayadaha kala tilmaamay. laakiin dhulku inuu 7 yahay qur-aanku waa laga fahmay, laakiin kuma caddo nas kuma aha ama axaadiid sariix bay ku yihiin nas bay ku yihiin ayagoo caddeeyeen. qur-aanku waxaa laga fahmay aayadda fi suurati dalaaq aakhirkeeda ku timaaday. samaawaadkii markuu ilaahay kasoo sheekay wuxuu yidhi wa min abuuritaankood uu sheegay ayuu wuxuu yidhi wa min alardi milahunna waaya milahunna marka dameerkaa loo celiyo inay 7 yihiin baa markaa laga fahmay. alcaashiratu waxaa weye annasu caddaynta la cadday ana alardiina dhululka sabcun 7 inay yihiin ka samaawaat sida samaawaadka oo kaleeto waaya sida samaawaadka oo kaleeto. alxaadiyata cashara masalada 11 ka faa'iidaysa waxaa weeye ana lahunna samaawaadkii inuu u sugnaaday cumaarun kuwa camiro oo degan inay leeyihiin ayaa marka waxaa weeyaan yaa halkaa laga gartay samaawaadki in wax camir ay jiraan. maxaa yeele malaa'igtii baaba degan soo maha, malaa'igtii baaba ku nool. ana lahunna inay u sugnaadeen cumaaran ana cumaaran lahunna inay u sugnaadeen wey waayo cumaar inay u sugnaadeen iyo kuwa macnaha ku nool. الثانية عشرة مسألة لبي تونك حول إثبات الصفات صفات الله الله سجو خلافا للأشعرية أيضا إشاعرة الخلافة صفات الله سبحانه وتعالى أولية هي ويا أما الصفات خبرية هنقدين أما الصفات فعلية هنقدينه إن الله سجوه إلهي سبحانه وتعالى مقعين وأولية هي مقع كالسؤال الله أولية هينا وحو حنبارسيها الصفات وحنبارسيها مركا صفات كاس وإن مركا الله سجوه سيدو ذن الله سجو sida daatada ilaahay subxaana wa tacaala loo sugo sifaadkiisana waa in loo sugo waay. qaabka aanu sugaynana ma naqaan, kayfiyadooda ma naqaano, sababtoo ah daatada ma naqaana kayfiyadeeda. saa daraaddeed marka sifaadkana kayfiyadooda ma naqaano waa sugaynaa, maxaa yeelay sharcigeena ayaana baray inaan sugno. intaa way muhiimadda. khilaafan lilashcariyati ashaaciradu waa firqa kalaamiya wey, nimankaan ahlu kalaamka u wareeri oo ku saamoobeen oo ku qalbi wareereen oo qalbigood uu macnaha ku madoobaaday oo aad iyo aad macnaha waxa u rafaaday oo wax badan oo ilaahay subxaana wa tacaala diintiisa ka mid ah inay inkiraanba hataa qaar kamid ay ka soo dhowaatay ayay ka mid yihiin. marka ayagu mar kale ayaan qaadan doonaa insha allahu tacaala. shaacirada abulxasan alashcari nimankaa ku abtirsada wey, waxaan la yidhaha culimada xaqiiqa
waayahay marka ashaaciradu waa koox xaqiiqada marka loo laabto saan soo sheegnayba ka tirsan firqatu ljahmiya ayay ka tirsan tahay marka xaqiiqada loo dega wey. waxyaalahan kale oo haddee suuqa yeelo oo ashaaciro waa ummadoo dhan iyo waxaas waa wax iska dacaayaada layska yidhaaha oo wax iska sheegasho ah, wax macno oy leedahana ma laha, wax xaqiiqo ku dhisanna ma aha, wax ahlu cilmiga lala dhex yimaadana ma aha. dulaabulcilmigana way ogyihiin waxa noocaas inay xaqiiqada ka fog tahay. marka insha allahu tacaala markeeda ayaan ka hadli doonaa ashaaciradu, laakiin waxaad hordhac ahaan u ogataan abuxasan alashcari oo dhashay 260kii hijriyada markay ahayd, geeriyoodayna 324 ama 330 geeriyooday. nimankaasay ku abtirsadaan. asalkiisa hore muctasile ayuu ahay, 40 sano ayuu muctasile ahay. marka haddii 40 sano uu muctasili ahay, 10 sanan oo caruur ahay, halkaa waxaa ku baxday 50 sano. 50 da-diisana waxay gaartay marka ugu badneyd 64 ama 70 buu gaaray. haddii 330 uu geeriyooday, 70 jir buu ku geeriyooday. haddii maxaa la yidhaahaa 324 hadduu geeriyoodin wuxuu ku geeriyooday 64 sano ayuu ku geeriyooday. marka 64 sano haddii laga gooyo 50, haddii laga gooyo 14 sano ayuu ashaaciro ahay sidiisaba. haddii 70 ku geeriyooday layidhaahana 20 sano miya ayuuba ashcari ahay. marka nin noocaas ayuu ahay. ashaacirada na waxa weeyaan qaybo ka mid e way gaalaysiiyaanba muctasilada. macnaheedu marka waxa weye imaamka ay ku dayanayaan asalkiisa hore nin gaal ah oo muctasilo iyo firqo ay gaalnimo ka aaminsan yihiin ayuuba ahayba. marka insha allah faahfaahinteeda meel kale ayaan ku sheegi doonaa. laakiin ka hordhacaan sidaa usii ogaado waxyaalaha marka meelaha la wado iska dacaayaadkana wax ka jira ma laha. ayaga naftoodaaba ka jawaabay oo qirteen culimadoodii waaweyneed qaybo ka mid ah in ummadda badankooda ayna raacsaneen ay qirteen. waxaa kaloo muhiim jiddan in daalib cilmiga u fahmo ah caqiidada nimankan ay aaminsan yihiin kutubtooda ku qoran wax ay ummad islaam fahmi kartaba maba. walihaada bay ka qayliyeen sida ciz ibn cabdisalaam kitaabkiisa alaxkaam alqawaacid alkubra loo yaqaano uu ka qayliyoo yidhi caqiidada annaga aan rumaysannahay wax la fahmi karo ma aha, ilaa uu saxaabadii hataa uu ka hadlay inayna waxaas wax saarnaay oo ayna ahayn. marka insha allahu tacaala darsigeeni maanto inta ayaan kusoo gabagabaynayna. hada billahi towfiiq. sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamedin wacala aalihi wasaxbihi wasalam.